Assalaamu calaykum saaxiibayaal meel walba dunida ka joogtaan kusoo dhawaada muuqaalkeenan. Waxaa idiin hayaa fikrad sugitaan tagsi keentay. Waa dhalashada mid ka mid ah shirkadaha gaadiidka kuwa ugu waaweyn caalamka aynu joogno maanta. Marka wax la sameynayo, waxa ugu muhiimsan waa helidda fikrad iyo hirgelinteeda. Fikradda la hirgeliyey waxa ay u dhigantaa maanta malaayiin lacag ah. Laba nin oo saaxiibo ah ayaa sugayay tagsi, kadibna waa uu ka soo raagay. Raagitaanka ayaa keenay fikradda dhalashada shirkadda Uber, oo ah shirkad ugu caansan maanta caalamka aynu joogno dhinaca gaadiidka dadka qaada. Waxaana laga yaqaanaa dhammaan adduun weynaha. Waxaad ka dalbanaysaa moobilkaaga adoo gurigaaga jooga. Waxa ay ku bilaabantay waxa ay tahay Uber. Waa shirkad ka hawlgasha wadamo badan oo caalamka ku yaala, waxaana la aasaasay 2009 bishii Maarch. Waxaa fikraddaas keenay amba lahaa laba nin oo saaxiibo ah oo la kala yiraahdo Travis Kalanick iyo Gareth Camp. Waxaa lagu tiriyaa shirkadaha ugu koritaanka badan 10kii sano ee ugu dambeeyay caalamka oo dhan. Maanta 900 oo magaalo ayay ka shaqeysaa Uber, 65 dowladood. Waana tiro macquula inay kor u kacdo daqiiqad kasta aynu joogno, maadaama ay shirkaddu ku socoto maskax ah isballaarin iyo koritaan joogto ah. Application-ka Uber ee tagaasida laga dalbado waxaa isticmaalayay 110 milyan oo qof 2019. Waxaa laga yaabaa inay maanta intaa ka badato. Tiradu waxay ku shaqeysaa qaab cajiib ah oo ah inaanay lahayn gawaadhi u shaqeeya iyaga ee qof kale gaarigiisa shaqsiga ah ku shaqaysiinayaan. In ay gaarigaaga u adeegsadaan tagsi ahaan, heshiis dhex mara qofka gaariga iska leh iyo shirkadda Uber. Aasaasyaasha Uber inta aanay sameyn shirkadda Uber waxay mareen tijaabooyin badan sida shirkado yaryar oo dhinaca tiknoolajiyadda ah in ay ka sameeyaan lacago badan amba ay ku iibiyaan. Waxayna ahaayeen rag lacag haysta kana qayb gala shirar waaweyn sida inoo soo socota. Laakiin marna soomay dhigan inay sameynayaan malaayiin lacag ah ay la kulmayaan kana iman doonta tagsi ka soo raagay. Inta badan fikradaha hirgalay waxay ka yimaadaan kadib mushkilad u baahan xal. Xalkaasina uu noqdo wax laga faa'iido. Waata la yiraahdo baahidu waa hooyada sameynta shay ama sameynta fikradaha. Markaad baahan tahay wax kasta waad sameyn kartaa. 2009 waxay joogeen magaalada Paris ee dalka Faransiiska ayagoo ka qayb galaya shir tiknoolajiyada loo qabtay. Maadaama ay safar ku ahaayeen Paris, waxa iska ahaayeen dad safar ah oo aan wadan wax gawaadhi ah. Gawaadhidoodii waxay kaga yimaadeen dalalkoodii Mareykan iyo Kanada. Dantu waxay ku kaliftay inay tagsi raacaan amba tagsi dalbadaan. Nasiib darro, tagsigii ayaa ka soo raagay. 2009 siduu adduunku ahaa imika ma aha, oo may jirin moobilka laga dalbado tagsi. In badan ayay sugeen tagsi. Waxay bartaa kaga timid fikrad ah hal abuur ah inay sameeyaan wax isku xidha shirkadda tagaasida iyo dadka. Kadibna uu qofku ka dalban karo moobilkiisa isagoo gurigiisa amba goobtiisa shaqo jooga. Isla waqtiga, shirkadda Apple waxay bilowday baahinta moobilkii ugu horreeyay ee screen touch ah ama taabashada oo imika aynu isticmaalno oo berigaa cusba oo application-ka lagu isticmaali karo. Fikraddaasi waxay isku beddeshay inay isku xidhaan dad caadi ah oo gawaadhidooda wata in darawalku moobilkiisa ka degsado application-ka. Waxa shuraako ahna lala galo shirkadda Uber, taasi oo ah in qofka caadiga ahi moobilkiisa furo oo maapka ka arki karo gawaadhida ku xidhan Uber.
markaa meesha uu taagan yahay amba goobta uu taagan yahay ka agdhow, waxaana uu si toosa ugu xiran yahay GPS-ka. Fikrad kastaa waxay rabtaa in dhab laga dhigo oo laga rumeeyo, waxayna qaadatay ilaa 2010 inay caadi u dhaqan gasho, waxaana lagu bilaabay ilaa 3 gaari. Maanta 5 milyan oo gaari ayaa u shaqeeya. Cajiib. Markii ay ka soo laabteen Paris iyagoo wata fikraddaas oo ku laabteen San Francisco ee dalka Mareykanka, ayay bilaabeen sidii ay ku hirgelin lahaayeen fikraddaas, waxayna iibsadeen domain name magaciisu yahay ubercab.com. waana website waa maskax shaqeynaysa 24 saac. Waxay rabaan dhisidda shirkad laga daba dhacay oo weyn oo gaadiidka shaqeysa. Haddaba waxaa ka dhigay inuu degdeg u faafo shirkadda Uber, amba ay degdeg u faafto sahlanaanta adeegsiga application-ka Uber. Haddaba markii la arkay inay shirkadani xawli ku socoto, ayay maalgashadu u hanqal-taageen inay maalgashadaan, waxayna bilaabeen maalgashi. Waxaa lagu maalgashaday adduun gaaraya amba lacag gaaraysa $40 bilyan. Maalgashigan badan waa inay iyagu wax ka faa'iidaan maalgashatadu. Kadib markii shirkaddu la soo dhigay suuqyada saamiyada caalamiga ah, nasiib darro, Uber waxay la kulantay weerar adag oo kaga yimid shirkadaha tagaasida caadiga ah, maadaama ay suuq la'aan dhigtay shirkado badan. Dadku intii ay sugi lahaayeen taxi maanta oo dhan oo cadceedu ku dhici lahayd, ayay iyagoo gurigooda jooga dalbanayaan. Markaa tagaasidii ayay suuq la'aan ku dhacay, waxaana cirka isku shareeray dacwadda ka dhanka ah Uber oo sababtay in wadamo badan laga soo eriyo Uber. Arrinku waxa uu gaaray in Uber ay heshiis la gasho khabiir lagu magacaabo David Wolff, oo ah khabiir istiraatijiyadeed lana soo shaqeeyay madaxweyneyaal badan, si uu afkaar ugu beeriyo amba ugu kordhiyo saameynta Uber. Wadamo badan oo Carabta iyo Afrikaanka ah ayay gaadhay, dhulkana la gashay shirkado badan oo tagaasida ka shaqeeya. 2016 Uber waxaa laga mamnuucay London, UK inay ka shaqeyso kadib dacwado iyo isqabqabsi batay oo ka dhexeeya Uber iyo tagaasida, waxaana shaqaale ka ahaa in ka badan 50,000 oo qof. Waana lambar aad u badan. Markii dambe waa loo ogolaaday inay ka shaqeyso UK. 2013 Uber waxay ku faaftay wadamo badan oo Aasiyaan ah sida Shiinaha, wadanka ugu dadka badan dunida, taasoo ay adeegsan doonaan malaayiin qof oo Shiinees ah. Asaasayaasha shirkadda, labada nin mid ka mid ah, waxa uu xoogga saaray inaanay shirkaddu eegin faa'iidada soo galaysay, laakiin ay isballaariyaan. Ilaa markii dambe uu heer gaaray in uu furo adeeg lagu magacaabo Uber Moto, waana kareynta mootooyinka, maadaama Aasiya laga isticmaalo mootooyinka. Waana fikrad aad u fiican. 2018 Travis waxa uu galay liiska ragga ugu qanisan caalamka. 2019 Uber waxaa la soo wareegtay waxay la soo wareegtay shirkad la yiraahdo Careem, oo iyana ah shirkad u shaqeysa sida Uber oo kale. Si aanay suuqa uga saarin, waa inay iibsataa Careem lacag gaaraysa $3.1 bilyan. Uber meel kasta way gashay oo caalamka ka mid ah. Weligaa hayasin fikraddaada hirgeli ayaan ku odhan lahaa. Mahadsanid. Waan isku mahadsantahay daawashada aad daawatay. Fadlan haddaad ka heshay like star si aan u soo kordhino muuqaaladan oo kale.